nabadgelyo. aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin. sharaf iyo karaame iyo ciise rabbi dushiina ha yeelo. maalin baa waxaa sheekaysanayay gabar iyo aabbaheed. gabadhii waxa ay aabbaheed weydiisay su'aal, waxayna ku tidhi, aabbe intee in la-eg baa la ii ogol yahay in aan jirkayga ka fiido? ama intee in la-eg ayaan isqaawin karaa ama aan jirkayga qaawin karaa? aabbihii waxa uu ahaa nin aad u xigmad badan. xigmaduhuna ma fahmo qof walibaa. si aad xigmaddan u fahantana xaadiri qalbigaaga. aabbihii waxa uu ugu jawaabay gabadhiisa, aabbe jirkaada ka fayd inta aad ogoshahay in ay naarkaa taabato, ama waxaad qaawin kartaa inta aad ogoshahay in jirkaada la cadaabo. hadalkaasi waxa uu ka wadaa meel walba oo aad feedo oo aad u ogoshahay inay cadaab taabato, fayd aabbe. haddaadba jirkaada u ogoshahay cadaab, waad feedi kartaa jirkaada. adiga ayaa leh, laakiin haddaadan u ogolayn jirkaada inuu cadaab taabto, jirkaada xafid oo astur oo xijaabka rabbi saar oo ku dabool. goortaad dabooshana naar xaaraan bay kaa noqonaysaa. ilaahay qur-aankiisa waxa uu ku leeyahay isagoo xabiibkeena la hadlaya, yaa ayuha annabiyu qul liaswaajika wa banaatika wa nisaa'i almu'miniina yudniina calayhinna min jalaabiibihin. jalbaabka maha qamaar la xirto, diracna hoos laga sii gishto oo jirkaada oo dhan uu sawiran yahay, balse xijaabka dhabta ahi waa xijaabka kan jirkaada oo dhan qarinaya oo jirkaada meel ka mid ah aanan soo muujinaynin. haddaad soo muujisana, dembigan kan ku fiirinaya iyo dembigaaga adiga ayuu korkaaga ahaanayaa. qof aan dembi gali lahaynna dembi ayaad u soo jiiday, adiguna dembi ayaad isku soo jiidaysaa. shayddaanna wuu kaa faa'iidaysanayaa. maalinta yowmul aakhirana markaad tidhaahdo, ilaahayow shayddaan ayaa arrintaasi igu booriyey ama igu wacyigeliyey, waxa uu shayddaanka ku dhihi doonaa, falaa taluumuunii waluumuu anfusakum. aniga waxba yaala eedin buu dhihi doonaa, naftiina eeda, taas baa eed idinkaga baahane. marka maanta ayaad jaanis haysataa. naftaada waxa ay jaanis haysataa intaan ruuxdaada la qaadin. intaasi baa jaanis haysataa. towbaduna way furan tahay oo ilaahay qur-aankiisa waxa uu ku leeyahay, qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmatiillaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica innahu huwa algafuuru raxiim. ninkii waxshi la dhihi jiray, goortii lagu kari waayey inuu yimaado, aayad welibana loo keenay, aayaddan ayuu ku qancay oo waxaa lagu yidhi, qofka ka quusta naxariista rabbi waa qof hoogay, ilaahay nagama quusiya naxariistiisa dembi haddaad gashay, ilaahay dembigaaga wuu kuu dhaafayaa, laakiin towbo baa lagaaga baahan yahay. balse qof waliba oo ilaahay awooddiisa iyo cadaabkiisa aanan ogayn ama ismeermeersiinaya, isagu waa mid khasaaray. addoonka waxaa looga baahan yahay inuu ku noolaado bayna alrajaa'i waalkhawf. waa sida culimmadu ay dhahaan, waa addoonku inuu ahaadaa 50-50 oo kale, in ilaahay rajo oo keliya uusan ka qabin, oo uu dhihin oo keliya ilaahay qur-aankiisa waxa uu ku yidhi, ina allaha yakfiru dunuuba jamiica. ilaahay dembi walba waa uu dhaafayaa, balse addoonka uu la socdo ilaahay inuu yidhi, ina allaha shadiidulciqaab. ilaahay inuu yahay mid shadiidulciqaab ah, hadduu yahayba ghafuuru raxiim. labaduba qur-aanka way ku soo arooreen. marna ilaahay inaad ka bakdo, naxariistiisna aad filato, labaduba waa lagama maarmaan. marka gabaryahay isqaawinaysaa, jirkaada qaabi intaaad ogoshahay inay naar taabato. haddii aadan ogolayn in jirkaaga naar ay taabato, ilaahay ka baq. si naxariis leh baan kuu odhanayaa, gabar mustaqbal leh baa tahay oo soo baxaysa. jirkaada haddaad qaawisana, wax kuu imaanaya ma jirayaan gebi ahaanba. kan kuu imaanaya waa kan kaa doonaya oo keliya fisqi. laakiin wax wanaagsan haddaad doonayso adduun iyo aakhiro, haddaad doonayso walaashay, istoosi oo waddada toosan qaad, oo ishagaaji oo xijaabkaaga qaado. qamaar la xirto wax uu taraya ma jiro gebi ahaanba. halaagba waxa uu ka bilowday goorta uu yimid qamaar. qamaarku waa waxa dadka halaaga,
xijaab baad wadataa, haddana caariyaadka baad ka mid tahay, oo waxaad ka mid tahay kuwa rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu sheegay waa kuwa dhar wataa haddana qaawan, caariyaad caadi ah. waxaan kaa codsanayaa si naxariis leh inaad is-asturto anoo kaala baqaya inay naar jirkaada taabato, sababta oo ah naartu wax fudud maaha, sidaad malaynaysaanna maaha. ilaahay oo kaa cadhowda yaa kuu wanaagsanaanaya. meelaha wax laguugu caynayo oo maalinba waxuun lagaaga sheegayo waa caro ilaahay oo korkaaga ku soo degtay. laakiin goortaad wanaagsan tahay, qof wanaagsan qof caynaya ma jiro ilaa mid duloobay mooye. marka si aad u wanaagsanaato, xijaabkaaga qaado oo is-astur, wanaagga raac. ilaahay wax wanaagsan, wax ka sii wanaagsan buu kuu diyaarinayaa. adduun iyo aakhirana waad liibaanaysaa, gacantaadana wax wanaagsan buu Rabbi soo gelinayaa, quluubtaadana ilaahay wuu kuu dejinayaa. wallaahi waxa la idinkala cabsanaya waa naar, naartuna dheedheel maaha. rabbi aynu ka baqno. ilaahay waxaynu weydiisanaynaa wax walba oo nebi Muxamed weydiistay, waxaynu ka magangelaynaa wax walba oo nebiga ka magangelay sallallahu calayhi wasallam. adiga ayaa ilaahow kaalmeeye, adiga ayaana kaalmo ku weydiisanaynaa. waxaan idinku ogahay xijaabka iyo inaad is-asturtaan. gabar walbaahi waa boqorad, boqoraduna maaha qof walbaahi inuu taataabto ama qof walbaahi inuu arko. dhaymanka waa la dhowraa, idinkuna dhayman waad ka khaalisan tihiin, sababta oo ah ilaahay janno buu lugihiina dhex dhigay goorta aad hooyo noqotaan. goortaad gabar tihiinna waxaad jannada geyn kartiin aabbihiin haddaad wanaagsanaataan. meel walba waad ku karaamaysan tihiin dhabtii. allaha idin xifdiyo, cimrigiinnana allaha dheereeyo.